maalinkii dambe ayuu sacda walaalkeed shaqadii ka yimi gurigii wuu soo galay walaashiis oo bursatay albaabkay ka baxday alxamdulilah bay tiri xaaskii walaalkeed qabay alla kuma siceeyo kolkay degrina raashin bay dhigatay hadhow tirahda qalma banaan hadday soo noqoto almuhim sacda walaalkeed baa kaxeeyey abaartimentiyo laysla dego oo iskuulka u dhow ayuu mid uga kireeyey way degtay wuuna baaraya waxaa la yidhi guryahaas badanaa macalimiinta iyo dhakhaatiirta iyobaa dega aanan u dhalan magaalada oo shaqada unu yimi qalbigii baa u degay wuxuu yidhi meel fiican bay joogtaan macalimiinteedii iyo dad kaloo mutacalimiina bay dhex joogtaaye macsalaam ka soo teg abu maajid baa hawshii ogaaday wuxuu u yimaaday sacda walaalkeed wuxuu yidhi walaalow dee gabadhii waa layga reebaye 2 maalmood kaliya inaan ayada keligeed u ingeernaado seebay noqonaysaa yani waa abu maajid asagu markaa wuu dhibsanayaa in ay lacagtii iska dhinto gaarigu waa u buuxay habadu hadday degto meaheed waxa weeye lacagtu waa isdhimaysaa maya wiil waxaas ha ka baqin lacagtii awalka hore aad qaadan jirtay unbaad qaadanaysaa waxna iska dhibi maayaan waxay ku kordhi maayaan keliya maalinka khamiista waad soo kaxayn oo macalimiintay soo raacay sabtidana macalimiintay sii raacay in xaq iyo karaameyn kule buu ahaa nimankaasoo dhan intee sana buu gaariga kaxaynayay oo xaasaskooda u ilaaliyey way ku aamineen macalimiin baa ka fadhiistay isagoo weli gaarigii wada haddana kuwa kala raaca oo dhalinyar kala waxbaratay ah haddana midbaa ka weynaata tu kala kaxaysa marka in aanan boosna laga faarujin xaq buu leeyay sheekadu sidii bay ku socotay oo maalinka khamiista bay sacda soo raacda reerka xaafadii walaalkeed bay tagtaa iyadoo laga soo dhaweynayn sabtidana dib bay usoo noqotaa dhowr bilood ba kasoo wareegtay intii ay sacda reerkooda ka tagtay waxaa la gaaray maalinkii ugu dambeysay ee sanad dugsiyeedka oo waxaa soo garayay fasaxii xagaaga maalinkaas abu maajid hooyooyinkii macalimiinta ahaa wuu soo qaaday oo ay sacda la socoto tuulada barxadeedii buu soo dhigay maalin walba intii sano oo uu shaqaynayay dareewal ahaan waxa uu macalimiinta dhigi jiray barxadda magaalada ay degan yihiin masjidda barxadda agteeda ku yaala oo marka ay ku tukadaan xaasaskii macalimiinta oo idil nin walbaaba salaada maqrib markii uu ka soo baxo ayuu meesha fadhiistaayo xaaskiisa uu ku sugaa gaarigu markuu soo istaago macalimad walbaba odaygeeday sii raacdaa oo gurigoodii bay aadaan maalinkaas macalimiintii wada faraxsan buu soo qaaday waqtigii caadada ahayd waqti xoogaa ka horeeya ayuu yimi oo salaadii maqrib oo aan wiil la gelin ayuu soo dhigay macalimiintii macalimad walbaba gurigeedii bay iska aaday gaarigii markii uu isyiri xir ayuu arkay in ay macalimad ka mid ah macalimiinta boorsadeedii gaariga ku ilowday waa tee wiilimada maskax fallogu ku dhacay boorso yar ma aha waa boorso weyn oo ay macalimad walba ay wadato oo ka samaysan maro kolay baad moodaysaa kolayadaas waxa ay macalimiintu ku qaataan falaas shaaxa ama tarmuus ama talaagad midaad u garanaysaanba iyo waxa ay cuni lahayd inta ay shaqada joogto idil maxaa yeelay markii ay iskuulka joogaan way adag tahay inay aadaan meel wax laga cuno oo in u jirta iskuulkana mahayad ma ogle marka waxay ku khasban yihiin in ay waxay maalinkaasoo dhan kuudan lahaayeen ay hore usii qaataan marka boorsooyinku waa isu wada egyihiin oo halin meel baa laga soo wada galay macalimad walba kiyo kale unbay wadataa aan soo noqone lama uunan yaabin marka boorsadii buu soo qaaday wuxuu yisiri bal markii salaada laga soo baxo odayaashaas kolba islaantiisu miday tahayba midii ay islaantiisu leedahay alaabta unbuu garanay inta uunan odayaashii ula tegin horta ayuu furay mise noola nefley ah oo nuxnuxsanayaaba dhex jiifa oo yarood garanaysid inuu hadda dhashay wabbay cadal uu yiri taa waa tay midda maseersan oo ilmaheedii gaariga ku dhex ilowday oo la yaab laba aysan noqon inuu ilmo gaariga ka dhex helo maxaa yeelay macalimiintaanu macalimiin hooyooyina bay ahaayeen markay midu ilmo dhasho way sii qaadan jirtay ilaan ilmuhu hooyadii kama maarmayntaasoo dhan ilmo yiriisu hadda dhashay oo nuubaya horey bay usii qaadan jirtay inta ay hiisadaha ku jirto qof dumar oo iskuulka joogta ayay usii niiban jirtay oo shaqo kala qaban caruurta loo sii niibta un taasaa usii haynaysa markii uu ilmuhu ooyay u keenaysaa way nuujinaysaa way aamusin hadhowna horey bay usoo qaadanaysaa marka abu maajid ma sii yaabine waxa uu sugay inta salaada laga soo baxay salaadii markii ay ka soo yaaceen raggii ayuu ilaan wey is yaqaanaan kulligii soo qabtay oo mid walbaba weydiiyey oo yidhaahday oo mislaantaadii baa iska lahayd boorsadan iyo ilmahan baa la dhaway waxaa cajiib ku noqotay in mid walba ay yidhaahday war ilmo iima dhalan looma joogo ilmo intaan leeg yaah yaa dhalay haddaa ilmahan aan meesha ka dhexlay yaa dhalay haddaa ilmahan aan meesha ka dhexlay markii waqtigii ka dhacay oo uu gurigiisa ku noqon lahaa ilmahanna si uu u gala uunan garanayn ayuu kaxeeyey iyo booliska u geeyey ilmahanan gaarigayga ka dhexlay buu yidhi booliskii ilmihii bay qaadeen nimankii qabay gabdhihii macalimiinta ahaa bay waceen soo kaxeeya bay dhihin xaasaskiina xaruntii baa la isugu keenay mid walba gaar baa loo wareystay halkaa la soo kaxaynaya sacda ka dhex jirta sacda waxay tiraahday aniga maxaa igu yeelanaysaan maxaa ii wareysanaysaan reerba malihii see ii wareysataan aniga waaba ummadii waad igu ceebayseen almuhim kulligood waa la xaqiijiyey inaynan ilmaha dhalin macal gabadhii bilaa xaaska ahayd guryahoodii bay ku noqdeen ilmihii si loo galo iyadoo la garan laayahay maadaama uu soo kacay oo kayaa ku dhuftay markii hore waa hurda lasoo helay ee qof dumara waxay tiraahda keena anaa sii haynaya inta lasoo ogaanaya ilmahan cidda dhashay oo sii siinaya waxa uu u baahan yahay ilmihii bay qaaday kolaygii lagu waday haddii ay ka soo saartay wixii lagula soo dhexriday waxa ku jiray dhambaal yar hadday furtayba waxa ku qornaa ilmahan waxa dhalay ninka gaariga iska leh oo wada waa abumaajidi aftii dumarka ahayd dhambaalkii bay la soo oroday booliskii bay u keentay waa la soo qabtay abumaajid
maaji ka waran baa la yidhi haye maxaad leeda yaa waxay tirahdeen igu soo celiya kaalay baa la yidhi markay dhagahaagu sifoobaan baa lagugu celindayahay xabsi baa loo taxaabay sheeg baa la yidhi ilmaha hooyadii warya ilaahay yaqaan buu yidhi waree anigu ilmo ma dhalin ma aha ilmahaygii eedara wax kama dhagaysan bog iyo xaad baa loo garaacay nag dhinac walba waa ka soo mareen waxa uu ka dhakaa ku waayey ma dhalin anigu ilma kan waxay dhaheen waxba noo sheegi maaye annagu ballaanna caqligayga isticmaalno wax baarno maadaama ilmaha laga keenay magaaladii ay macallimiinta wax ka dhigi jireen waxaa la yidhi hooyadiina malaha meeshay joogtaa dembi baarayaashii baa tegey macallimiintii meesha joogay oo dhan dumar iyo rag iyo waxay ahaayeen oo idil baa la waraystay cid aragtay iyo cid sheegatay iyo cid ilmo dhashayna waa la waayey abumaajid bay kusoo noqdeenoo waxay dhaheen warhoy ma garanaysaa mise wax daanbaad raadinaysaa xaan kartaa wiyan waxaanan samaynba waxaa la yidhi ilmaha hooyadii iskuulka xitaa wax kama dhigta ee iskuulkiina